السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيتين صاحبتي مي في عنتهين قصدينا maanta xoogaa yar waa ku gelgelaysaa intaana qisada bilaabin ka hor waxaan rabaa inaad subscribe-ka ii saartaan haddaan weli ii saarin haddaa hore noola joogtane jazaakallahu khayr. maxaa la dhahaa qisadeena kusii soconaynaa. qisadan waxay ka dhacday California, ka dhacday America. hooyadaaneetood waxay kasoo guurtay meel la yiraahdo Puerto Rico. meeshaas waxaa waaye Caribbean, Spanish aa lagu hadlaa. America usoo guurtay nolol iyadoo ka raadinayso. waxay wadataa laba wiil, mid yar oo 6 sano jiro oo la dhaho Luis, iyo mid weyn oo 10 sano jiro oo la dhaho Roger. maalin maalmaha ka mid labadeeda wiil waxay tiri xoogaa banaanka jardiinka kusoo ciyaara oo baxa banaanka. albaabka ka saartay waxay ku ciyaarayeen jardiinka ku ciyaarayeen. waqtiga markaasna waxay ahayd 1951 ahayd. waqtigaasaytood kaamiro iyo wax banaanka ma aynu ku xirnaan jirin sida hadda oo kaleenta deh. waxaa dhacday marka labadii wiil iyagoo meesha ku ciyaarayaan, naagaa meesha soo martay oo maxaa la dhahaa madaxa ugu xiran yahay safleeti yar cagaarno tabeemba waxaan dhahnoo kaleeto ugu xiran yahay. wiilkii yaraa gacanta ka qabatay oo 6 jirka ahaa waxay tiri nana camartaa ahaa soo bax dukaanka kaasoo siina. way ka haystay wiilkii. kii kale Rogerkii meesha fadhii weynaa asina wuxuu yidhi anna waa rabaa, mayba la hadlin. cunugii gacanta ka qabsatay waa iska sii socotay. asina wuu dabagalay wuu raacay. nanacaan wax ka soo qaado isleeyahay. naagta laakiin balaankeeda ma ahayn nanac inay qof soo siiso cunug inay xaddee rabtaa. way baxda naagtii socodkay boobsiisay, cunugii hor u sii kaxaysatay. markii cabaar sii socoto wiilkii weynaa 10 jirka wuxuu leeyahay sheekadan meela fiicno, hooyaa usoo shiida. wuu soo cararay, hooyadii soo imaaday. hooyo cunugii Luis ahaa gacanta naagta madaxa tabeebaha greenka ugu xiran baa ka wadatayoo sii socoto ee kasoo gaar. way soo carartay banaanka imaaday. cirar iyo dhul wiilkii meeshuu ka baxay. kaal adi sheegbo ma intuu orod male, xaguu orod male, ingilishna ma taqaano, qof wax sheegi karta malaha. intuu orod male, wax caawinaya male. mobile ma jiro waqtigaas intad iyo kala carar. ala ay taxaal booliiska la soo helay. waxay sheegaysaa markii la fahmay ka bacdi magaaladii laga raadiyay, cirir dhul laga raadiyay, waa la waayay. habeenkii oo intay idoon cadeen oo madoobeen ay ku hoytay gurigeedii. wiilkeeda 6 jirka ahaana Luis la dhahay faraho ka baxay. sanooyina ka soo wareegeen. maalin kasta booliiskii taagantay albaabka waxay leedahay wiilkeyga ma hesheen Luis ahaa maya, wiilkeyga ma hesheen maya. islaantii saas sidii ugu mashquulsaneed wiilka inay hesho ay ku mashquulsaneed nolosheedii waxaa kasoo wareegtay waqti dheer. way iska xanuunsatay. 93 sano markay jirto way geeriyootay iyadoo wiilkeedii saas le u raadanayso way ku geeriyootay. ala ay taxal meeshii kusoo haray walaalkii Roger dhahay kusoo haray iyo maxaa la dhahaa dad kale family way imaadeen, in adeerayaal in habrayaal meesha imaadeen. marka sidii yaa magaciisi magaalada lagu sii wada joogay. markii 73 sano ay moogan yihiin 2020kii baa naag ay family yihiin waxay iska qaaday DNA test iska qaaday. dadka way suubiyaan sanadadan dambe inay isfiiriyaan maxaa Afrikaan kugu jiro, maxaa Asian kugu jiro, waa yani falaad iskaga fiiriyaan. saasay u suubilaysa. way iska qaaday DNA waxay heshay qof ayada isku mid ay yihiin oo 22% ee isku mid yihiin. waxay istiri ninkaanaytood waxaa laga yaabaa qofkaanaytood inaan anaga family koraadnahay. waa la xiriirayaa, meel lagu la xiriiraya jirto. way la xiriirtay dhowr jeer laakiin ma uunu soo jawaabin. ayadoo yaaban waxay isdhaahday ma rabo qofkaan iska dhaaf. waa la arkaa qofka inuu kusoo jawaabay in kale meel lagu jawaabaa hesho aad jirto. markaa DNA iska qaadid oo meel aad gelisid qofka kaleetana meel uu ka arkaya jirto oo dadka iska arkayaan. marka center camal ay qabaan oo online dadkii oo DNA fiirinayo kiisa markuu fiiriyo qofkii oo ku dhow yahay wuu arki karaa. adiga si xaaladda saas u ahayd TV-ga igoo mar fiirsanayso bay waxay arkaysaa qofkaanaytood oo raadinaya DNA iska qaadayso oo laakiin ayada dan ahaanteeda iskaga fiirsanaysay. waxay maxaa la dhahaa markay yareed loogu sheekeyn jiray magaceeda waxaa la dhahaa Alida. 63 sano jirta. markay yareedna waxaa loogu sheekeyn jiray in nin jiro oo adeerkeed ah oo maxaa la dhahaa asoo 6 jir ah walaalkiis kaleentood oo Roger la dhahaayo oo magaalada dhinac ka degan ay taqaana xataa in laga xaday. oo wiilkii oo ilaa hadda meeloo ka baxay aan la ogeyn. storydaasna way haysta oo familka dhinaciisa ka haysatay. marka maadaama usoo jawaab waay DNA qofkaan qofkuu yahayba maba kusoo dhicin asiga. laakiin documentary iyagoo fiirsanayso oo TV-ga ag fadhiso waxay arkaysaa ninkaanaytood wejigiisa inuu u eg yahay
adeerkeed kaleentood oo joogo rojarkii wuu nool yahay. markay aragtay ninkii la soo carartay dadkii u wada sheegtay DNA-gay soo qaadatay booliiska tagtay way u sheegtay taariikhdii u sheegtay 51 inay ahayd. waxay kaloo u sheegtay wiilkaas inuu ka maqnaa qofkaas TV-ga jiro inuu saas yahay. waa la isku raadiyey. marka la isku raadiyey waaba la soo helay ninkii DNA-geedu isku mid ay noqdeen. ninkaaneetod wax kasta wuu iloobay noloshiisa. Louis qof weyn oo noqda dartaan maba ogeen nin dhimo inuu ahaa ma ogeen. wax kaliya oo xasuusta waxaa waaye walaalkiis Roger buu xasuus dambe u hayaa bis maadaama wada ciyaar jiray waqti badan ay qaateen walaalkiis bis waa xasuustay. ninkaaneetod noloshiisa marka waxaa laga gatay dad kale laga taa la siiyey. markii dad kale la siiyey dadkii dad fiican ay ahaayeen hooyo aabe way soo korsadeen iskuulay geysteen ilmo maynan qabin ilmay ka dhigteen. markuu soo weynaaday wuxuu ku darsamay militariga ku darsamay booliis soo noqday. sidoo militariga ugu jiray waxaa loo diray dagaalkii Vietnam loo diray 2 jeer oo dagaalka Vietnam aaday. markuu ka soo laabtay haddana wuxuu noqday dadka dabdamiskoo noqday. kadibna nin oday weynaado noqdo shaqada ka fariisto noqday. aabo waaye ilmo leeyahay awoowo waaye ala ay xaal walaalkiis uu xasuustaa Roger. ninkii marka helay walaalkiis is arkeen farxad bashbash iyo barwaaqo. calool xumada kaliya meesha ku jirtana waxaa ugu badan hooyadii iyadoo calool xumeed bay ku dhimatay. laakiin walaalkiisii 10 jirka oo kaga dhumay saas isku heleen. gabadhaasaana soo heshay aliida la dhahaayo. marka reerkii bashbash iyo barwaaqo bay meeshaas iskula joogeen iyagoo wada waayeel ah. waxaana ku darsanayaa meeshaan adduunkaneetood waxaa waaye waqtigaas 1951 hadday dhibaato noocaas dhici jirtay maanta wadankeena 100 jibaar ka dhacdo. rabbi subxaanahu wa ta'aala wadankeena ha noo dejiyo. ilmaha hala ilaaliyo. guryaha lagu haysto ilmaha banaan ma jiro ilmo lagu ciyaarsiinayo. adduunku waa xun yahay. qof kastaba si uunan xanuun ugu dhamaanin noloshiisa dadaalka aan badsano. wixii dhacay anaga waa naga weyn laakiin dadaalka aan badsano caruurteenana laba gacan aan ku qabsano. rabbi subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa naxariistiis waasaa adduun iyo aakhirana noogu naxariisto. jannatul firdaws calaana kuwa iskugu wada kulmo oo naxariista ilaahay ku wada kulmo allah noogu dhigo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.